اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه يا رب العالمين. ilaahayow anigu waan ka raalli noqday adiguna ka raalli noqo yaa rabbi yaa allah. taasna waxay ahayd ducadii uu nebigu sallallahu calayhi wasallam ugu duceeyey saxaabigan kadib markii uu dhinaciisa u dhigay qabrigiisii sharafta badnaa. waxay adduunyadu ku dhawaaqaysay yaa dalbijaadayn, balse waa uu iska dhega tiray in uu dhagaysto dhawaaqeeda, wuxuuna u jihaystay doonista aakhirada isagoona dadaal walba iyo juhdi walba ku bixiyey sidii uu ku gaari lahaa. cabdullaahi wuxuu ahaa wiil dhallinyaro ah oo faqiir ah. wuxuu waalidkiisa geeriyooday isagoo ahaa canug aad u yar, balse waxaa kafaalo qaaday adeerkiisa oo ahaa nin taajir ah oo haystay dhaqaalo aad u fara badan. wuxuu cabdullaahi adeerkiisa kula noolaa nolol aad u barwaaqo iyo raaxo badan oo xilligaas aanu jirin qof ku noolaa nolol la mid ah. markii ay muslimiintu ka hijroonayeen mako oo ay u hijroonayeen madiinatul munawwara ayay soo mari jireen deegaankiisa, waxayna u bandhigi jireen islaamka. markaas buu qalbigiisu u jilcay oo allena subxaanahu wa tacaala sadrigiisa iimaan ugu shubay. markaas buu ashhaatay oo qiray in alle mooye uusan jirin ilaah kale oo xaq lagu caabudo, iyo in nebi muxamed sallallahu calayhi wasallama uu yahay rasuulkii alle. wuxuuna xilligaas cimrigiisu jiray 16 sano. wuxuu cabdullaahi u hiloobay in uu arko rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam. markaas buu adeerkiisa u tagay oo ku yidhi, adeerkaygiyow, waxaan in aad soo islaamto sugayay muddo dheer ilaa uu sabarku iga dhammaaday. haddii aad jeceshahay in aad islaamto oo uu alle subxaanahu wa tacaala in aad liibaanto kuu qoray, waa nicmo aad u weyn. haddii aysan sidaas ahayn, ii oggolow in aan islaamnimadayda ku iclaamiyo dadka dhexdooda. markaas buu adeerkiisa aad uga carooday oo ku yidhi, waxaan ku dhaartay laata iyo cusa, haddii aad islaamto waxaan kaa qaadi doonaa wax walba oo gacantaada ku jira oo aan horay kuu siiyey. waxaana kuu gacangelin doonaa faqriga, waxaana ku ugaarsan doontaa baahi iyo gaajo aad u daran. markaas buu ku yidhi, samey waxaad doonto, balse anigu wallaahi waxaan rumeeyey muxamed sallallahu calayhi wasallam, waana ka tagay caabudista dhagaxaanta, waxaana u jihaystay in aan caabudo allaha weynka ah ee waaxidka ah. markaas buu adeerkiisa ka qaatay dhammaan wixii uu haystay ee adduunyo ahaa, xitaa wuxuu ka siibtay dharkii uu xirnaa, wuxuuna sii daayay isagoo qaawan. markaas buu cabdullaahi u tagay hooyadiisa. hooyadiisa ayaa go' dhammaad ah oo ay haysatay u kala jeexday oo siisay. markaas buu mid hoos gunti ka dhigtay oo jeexi kalena go' ka dhigtay oo huwaday. kadibna wuxuu u cararay rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam isagoo ka cararayay adeerkiisa ilaa uu ka soo gaaray masaajidkii nebiga sallallahu calayhi wasallam. markaas buu habeenkaas dhex jiiftay oo dhex baryay masaajidkii nebiga sallallahu calayhi wasallam ilaa laga gaaray oo laga adimay salaaddii subax. rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam dadka ayuu u soo jeesan jiray markii uu ka baxo salaada subax.
markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam soo eegay cabdullaahi oo ku yidhi, wiilow adigu yaad ahayd? markaas buu cabdullaahi u abtirsaday oo ku yidhi, waxaan ahay cabdulcuza almusaniyi, waxaan ku imid anigoo muslim ah. markaas buu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, bal adigu waxaad tahay cabdullaahi. waxaa kaloo cabdullaahi lagu naynaasi jiray sulbijaadayn. kadibna rasuulka ayaa u soo dhowaaday sallallahu calayhi wasallam oo ku yidhi, ilzim baabii, ama albaabkayga haga fogaanin oo agtayda soo deg oo ka mid noqo martideena. maalinkaas wixii ka dambeeyeyna wuxuu cabdullaahi laasimi jiray albaabkii nebiga sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna codkiisa kor ugu qaadi jiray qur-aan akhriska iyo tasbiixda. wuxuu yidhi sayidina cumar ibnulkhadaab allaha ka raali noqdee, yaa rasuulallah, isagu ma waardiyuu noqonayaa? markaas buu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, iska daa, isagu wuxuu ka mid yahay awaahiinta ama kuwa alle subxaanahu wa tacaala u tadarruca ama u khushuuca oo isku dulleeya. markii uu nebigu sallallahu calayhi wasallam u baxayay dagaalkii tabuuk ayuu dulbijaadayn nebiga ku yidhi, rasuulkii ilaahayow, iigu duceey in aan shahiid noqdo. markaas buu nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi, ilaahayow dhiiggiisa kufaarta ka xarrim. markaas buu dulbijaadayn ku yidhi, biabii anta wa ummii yaa rasuulallah, sidaas ma ahayn sidaan rabay. wuxuu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam, haddii aad ilaahay dartiisa dagaal ugu soo baxdo oo ay qandho ku qabato oo ay ku disho, waxaad tahay shahiid. ama haddaad ka dhacdo daabaddaada oo aad sidaas ku dhimato, waxaad tahay shahiid. ha u aabbayeelin midday noqonayso. kadibna sulbijaadayn qandho ayaa qabatay oo dishay. markaas bay saxaabadu u qodeen qabrigiisa. kadibna rasuulkii sharafta badnaa ayaa dhex galay qabrigiisa si uu qabrigiisa u dhexgeliyo oo uu dhinaciisa ugu dhex dhigo laxdigiisa. waxaana qabrigiisa u dhaadhiciyey saxaabadii waaweyneed, gaar ahaan abuubakar iyo cumar, allaha ka wada raalli noqdee. wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, si tartiib ah iigu soo dhoweeye walaalkiina. markaas buu nebigu sallallahu calayhi wasallam uga qabtay gacantiisii sharafta badnayd oo ugala wareegay abuubakar iyo cumar si uu ugu dhex dhigo ama u dhex jiifiyo laxdigiisa. wuxuuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam markii uu dhex jiifiyey qabrigiisa yidhi, allaahumma innii amsaytu canhu raadiyan fardi canhu yaa rabba alcaalamiin. ilaahayow, anigu waan ka raali noqday ee adiguna ka raali noqo yaa rabba alcaalamiin. markaas buu cabdullaahi ibnu mascuud allaha ka raali noqdee wuxuu yidhi, alla shallaytadaydiye, maxaan booskiisa u joogi waayay? waxaan hortiisa islaam ahaa 15 sano. allaahu akbar. wuxuu geeriyooday isagoo alle dartiisa u soo haajiray oo weliba ah mujaahid fii sabiilillaahi ah, isagoo ka fog ahalkiisa iyo qaraabadiisa oo ka soo tagay waddankiisii iyo gurigiisiiba. fallaahumma axsin khaatimatanaa yaa rabba alcaalamiin. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheergarayso asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin janalka inaad sabskaraib saarato si aad inoo dhiira geliso.
gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.